السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waa Sikriya Soomaaliya iyo wadanka Australia maanta waa 31 bishii August waxaan suuqa ka dhacay magaalada joogo Koonfurta Australia Western Australia meesha loo yaqaan magaalada Perth baan joogaa protestiga hadda wali waa socdaa dadka si suuqa la weynayaan laakiin anigu saaka waa tagay laba protest saddex protest afraad baa ka dhacay magaalada maanta oo marathon orada oo la siga 16 kilomitir oo magaalada lagu ordiyay oo qoomiyadaha isugu yimaadeen taas waa ka dhacday magaalada waxa kale oo ka dhacday counter protest wax loo yaqaan protestiga Australia oo immigration ka soo jeeday dad ka soo horjeedo oo isugu badan qaxooti iyo waxyaalo la midan protestigaas anigu horta saaka tagay meesha ka dhacisay midii kale match for Australia waa tagay oo iyaduna isku meel bay ka dhacayeen si waxay nabadgelyo bay ku bilaabatay labaduba iyagoo socday oo magaalada dhex maraya ay ugu dambeysay waan ka soo tagay halkaan fiidiyoyada iyo xabaashooda ku arka ka muuqdo codka ka jaray marka Australia dadkii lahaa guryaha ku jira waa dadka meelaha media dumarkii loo ordiyay waxa iska nabadgelyo dad muslimiin ku arko yaacay dad kale oo madow baan ku arkay qoomiyad kasta ku jirtay dadka laakiin Australia matchkeedu aad bay u caytamayeen oo qaylinayeen ma duubin anigu TikTok da laga yeelmayaan ma aad bay u caytamayeen oo dhaaranayeen calankii waxay wateen calaamadii Hitler bay wateen waxyaalo badan oo noocyo badan bay wateen sitadii dhex yaacayeen laakiin wadan iska firiyo waa la ogol yahay dimuqraadiyadda iyo waxyaalahaas marka wadamada reer galbeedka wax kasta ka filo oo kala kac iyo kala bood ah iyo magaranaysa sida magaranaysa protest iyo noocaas kale taa banaan baxyo lagaga soo horjeedo adiga laftirkaada anigu saaka markaan meesha tagay waxa lagu soo jeedaa aniga wax la mid ahayd oo qaxootiga soo galitaankiisa dad baa waxa wateen borar ay ku qoran tahay fiisiyaasha iyo qurfuji programka cancel magaranaysa oo la tagnaa meelaha dad baa ku hayeen go home oo guriga laakiin in 10 sano miyam 8 sano ba mar wax noocaas kale taa dhacaan wax saa u badan ma wadanku sidoo ugu badan yahay boqolkiiba 5 way dadka fikradda noocaas aaminsan waa fikrad marka daciifa waxay qabanaysaa ma jirto Australiana ma mideysna ayadaas ka soo jeeda abuurkii dadka u dhashay iyo cadaankii baa haysto waligoodna waa haysteen marka dad qaxooti tahay waliba Soomaali tahay Soomaalida oo hadlay ka wali 5 sano ama 6 sano laga yaabaa wax yar oo noocaas kale taa ku soo maraan aragtid taas loo fiiriyo hore looga soo gudbay taas ka galay taas ka bixin wax micnaa iyo wax qadiifad ay keento iyo wax magaranaysa awood ay leeyihiin midna ma jirto halka waa Sikriya Soomaaliya iyo wadanka Australia wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.